إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد xoogaa aan isu soo dhowaana marka hore intaanaan bilaabin maxaa yeele jalsadan saan oo kale nebiga sal alla ly slam ma ammaanin. saxaabadiisa wuxuu arkay kala fadhiso markaasuu nebiga sal alla ly slam wuxuu yidhi maa lii araakum ciziin, maxaan idiin arkaa inaad kala tegtegsantihiin, isku soo urura soo dhowaada u dhahay. markaas kabacdi saxaabada aad bay isugu soo dhowaa jireen ilaa raawiga uu uga misaalay ama tusaale uga dhigay haddii loo fidiyo salli yar kulligood inuu wada deeqaayo si isugu soo dhowaanayen keliya. mowduuca aan ka hadlayna macnaha caawa waxa uu noqon doonaa mowduuc wakhtiga xaadirka ama wakhtiga aan joogno taabanayo ama qusaynaayo. waxa uuna yahay altashabuhu bilkufaar ama mukhaalafatu hadyi ilkufaar, gaalada macnaha hadyigooda ama dariiqooda oo la khilaafo, amaba macnaha inay xurmatu tashabuhi bilkufaar, gaalada in laysku ekaysiiyo xaaraam inay tahay. maxaa yeelay wakhtiga aan ku jirno ayaa wuxuu yahay wakhti gaalada acyaadooda ama ciidahooda diiniga ah weliba ayaan ku dhex jirnaa. oo bishaan waa ogsoontihiin macnaha kirismas iyo weliba macnaha new year iyo wakhti sanad cusub iyo wax noocaas oo kale ay u dabaaldegaan. marka labaduna waxay ku dhisan yihiin laba shay oo macnaha diin tacalluq la leh ayay yihiin. saas darteed qofka muslimkaa marka waxaa habboon inuu ogaado mowqifka uu ka qabo ama mowqifka uu ka qaadanayo cumuuman gaalada in la isu ekaysiiyo, khusuusan ciidaha gaalada gaar ahaan. haddana mowduuca macnaha inta aanan gelin waxaan wax yar ka sheegaa mowduuca khatarta uu leeyahay, gaalada oo lagu daydaa khatarta ay leedahay. awalan khatarta ay leedahay nebiga sala allahu calayh wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama waciidkiisa ayaa qofka ku dhacaya. nebiga waxyaabihii uu ka digay iyo wixii uu macnaha u ballan qaaday qofkii gaalada ku daydo ama iska dhigdhigo, wixii uu ku sheegay ayaa qofkii ku dhaboobayo. maxay tahay marka nebigu waxa uu ku sheegay? imaam axmedaa wariyey min xadiidi cabdillaahi bni camr bni alcaas radia allaahu canhumaa, nebiga sala allahu calayh wacalaa aalihi wasaxbi wasalam inuu yidhi fii xadiidii ay ku jirtay wajucila risqii taxta dilli rumxii wajucilat adillatu waasagaaru calaa man khaalafa amrii waman tashabbaha biqowmin fahuwa minhum. nebiga sal lla ly slam waxa uu dhahay risqigayga waxaa la yeelay warankayga hoostiisa dulli iyo macnaha iyo yaraan iyo xaqirnaanna waxaa la dul dhigay oo la dul saaray wixii amarkayga aniga khilaafa ayuu yidhi nebiga sal lla ly slam. rasuulka amarkiisa qofkii khilaafa waa dullaysan yahay. aayadda qur'aankaana tilmaanto ina shaani'aka huwa alabtar. aayaddaasna macnaha waa qof daba go-an ee macnaha aan faa'iido aan marnaba inuu dhalo aan laga rajaynaynin. waman tashabbaha biqowmin fahuwa minhum, qolo qofkii iska dhigdhiga ama isku shabbahana iyaguu ka mid yahay buu yidhi nebiga sala allahu calayh wacala alihi saxbi wasalam. marka khatarta mowduuca uu leeyahay awalan kaas baa qofkii ku dhaboobaya haddii gaalada uu ku daydo. tan labaad waxaa meesha ku dhumaysa qaacidatu alwalaa'i waalbaraa' waxaa la yidhaahdo islaam oo iimaanka waxyaabaha ugu waaweyn ka mid ah. laamaha iimaanka waxyaabaha ugu waaweyn waxaa ka mid a qofka inuu dar alla wax u jeclaado, dar allana wax u naco. qofkii alla iyo rasuulkiisa ay jeclaadaanna uu jeclaado, qofkii alla iyo rasuulkiisa ay nacaanna uu naco. qofka caqiidada qofka muslimkae ka mid tahay. ambiyadii allana subxaanahu watacaala dariiqooda sidaas buu ahaa. oo haddeertaan macnaha aayadihii la akhrinaya ayaa waxaa ka mid ahayd watlu calayhim naba'a nuuxin id qaala liqowmihi yaa qowmi in kaana kabura calaykum maqaamii watadkiirii biaayaati illaahi facala allaahi tawakkaltu faajmicuu amrakum washurakaa'akum uma laa yakun amrukum calaykum gumma uma qduu ilaya walaa tundiruun. waa tii macnaha nebiyullaahi nuuxna macnaha saas buu dadkiisii uga macnaha ay kala mareen. nebiyullaahi ibraahim kadalika asagana waid qaala ibraahiimu liabiihi wa qowmihi inanii baraa'un mima tacbuduun, sidaasuu isagana uu beri kaga noqday. rasuulkeenna sala allahu calayh wacalaa aalihi wasaxbi wasalam kadalika asagana iyo ambiyadoo dhan. marka haddii qofka gaaladii sidaa inuu uga beri noqdo uga fogaado ay ahayd, haddii uu qallido ama uu isku dayo inuu isu ekaysiiyo xoogaa nooc min almaxaba ayaa qofkii gelayso. barihii laga rabay inuu macnaha ka fogaado gaaladiina ma ka fogaanayo qofkaas. marka mowduucaasoo alwalaa' walbaraa' ayaa ku dhumaayo marka qofka uu isku shabaho gaalada uu isu ekaysiiyo. tan kale macnaha hadyiga daahirka muuqaalka gaalada haddii qofka uu isu ekaysiiyo
wuxuu calaaqa la yeelan karaa baatinka ayuu macnaha cilaaqa u la yeelanayaa taana macnaha culimmada islaamka waa tilmaameen sheekh alislaam ibnu taymiya kitaabkiisa iqtidaa'u siraat almustaqiimka ayuu ku tilmaamay misaal qofka wax ku fahmi karana waa bixiyey weliba oo waxa uu yidhi qofka masalan jundiga ah haddii uu tago meel hariib uu ku yahay keligiis uu ku yahay magaalo aan laga aqoonin haddii uu tago dharkiisa oo kale qofka wato ee dharka uu wato oo kale ee dharka macnaha askarta qofka wato waxaad moodaa macnaha qalbigiisa waa siinaa dadka kale waa uga dhow yahay mar walbo oo wuxuu la yeelanayaa tafaacul iyo macnaha taqaarub buu la yeelanaya kadaalika qofka dadka isku meesha ka yimid markay meel kale macnaha isugu yimaadaan ay qariib ku wada yihiin waa israadsanayaan macnaha waxaad moodaa in dhiigooda u israadsanayo sida ay macnaha markiiba isu garan karaan taana qofka bani aadamka waa mushaahad waa fahmi karaa marka mawduuca saddexdaas khatarba marka waaye afartaas khatarba waa leeyahay culummada islaamkana mawduucan kama aysan jeesanin bal kutubo ayay ka alifeen mu'alafaad ayay leeyihiin kutubta ay ka alifeen waxaa ka mid ah iqtidaa'u siraat almustaqiim mukhaalafata asxaabi aljaxiim shaykhulislaam ibnu taymiya iskale kitaabkana sida ciwaankiisu uu yahay in jidka toosan la qaado waxa ay ku xidhanta ama ay laasimsanaysaaba in la khilaafo asxaabu aljaxiim dadka macnaha gaalada in la khilaafo jidka toosan haddaad rabto inaad qaadid gaalada oo aad jidkooda khilaafta ayaad ku gaaraysaa dariiqaas sida nebiga sala allahu calayh wala ali sali slam uu ku jeexay imaamu dahabi risaalo yar ayuu ka alifay oo iyadana matbuuc ah oo la yidhaahdo tashabbuhu alkhisiisi biahli alkhamiis ayuu juz macnaha mawduuca ka mida ayuuna qaatay oo ah acyaadda gaalada maxaa yeeley khamiisulkabiir wax la dhahay nasaarada u dabaaldegaan dad badan oo muslimiinaana kaga dayday dabaaldegaas iyo hadaayaadkooda iyo waxyaabahaas ka qayb qaato marka mas'aladaas buu kitaab ka alifay risaalo yar uu ka alifay tashabbuhu alkhisiisi biahli alkhamiis la yidhaahdo waxaa kaloo mas'alada macnaha wax ka alifay jaanib ka mida ka taabtay alxaafid ibnu xajar raximahu llahu tacaala kitaab uu ku magacaabay alqowl asabt fii xukmi siyaami yowmi asabti kitaab la yidhahdo mas'aladaas uga hadlay haddana laakiin wuxuu u banbaxay mas'alada tashabbuha caam ahaan isaga macnaha waa mafquud kitaabka macnaha kutubtiisa inuu ku jiro waa la ogyahay laakiin macnaha kutub hadda macnaha matbuuc ma ahan ma daabacna shaykhulislaam sidoo kale macnaha moxamed ibnu cabdilwahaab asagana macnaha masaa'ilu aljaahiliya waxbuu ka qoray masaa'ilu aljaahiliya alatii khaalafa fiiha rasuulu llahi sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalama ahla aljaahiliya kitaab ayuu ka alifay risaalo oo kale xajmigeeda uu dhan yahay ilaa iyo dhowr macnaha nuqdo ayuuna ku qoray oo uga hadlaayo waxyaabihii jaahiliga ay gooni ku ahaayeenoo nebiga uu ku khilaafay markuu yimid mawduuca wax ka mida iyadana waa taabanaysaa sheekh alalbani isagana macnaha jilbaabu almar'a almuslima ayuu uga hadlay kitaabkiisaas marka uu macnaha shuruudda jilbaabka uu ka hadlaayo waxaa ka mida in uusan u ekaanin libaas alkaafiraat haweenka macnaha gaalada dharkooda oo kale meeshaas buu marka qawaacid badan iyo macnaha ashyaa iyo macnaha baxdi uu ku keenay mawduuca uga warramaayo culumo fara badan oo kalena macnaha waa ka hadashay haddana laakiin macnaha kutubtaas ayaa hadda ugu muhiimsan khaasatan kitaabka shaykhulislaam ibnu taymiya mas'alada dhan buu soo koobaya dhinac walbana waa ka taabanaya mukhaalafada ama gaalada acmaashooda waxyaabaha lagu khilaafayo anwaacda ay kala tahay ayaan wax yar ka sheegaynaa qayb acmaasha gaalada ay samaynayaan waa wax diintooda ka mid ah shay diintooda ka mid ah gaaladii macnaha nasaarada iyo yahuudda shay diintooda ka mid ah oo agtooda macnaha mashruuc ku ah calaykum asalaam oo agtooda mashruuc ku ah amaba macnaha aan la ogeyn in agtooda mashruuc uu ku yahay laakiin diin ahaan iyagu ay u sameeyaan shay sidaas ah maalan sawmu yowma cashuuraa oo kale maalinta macnaha muxaram ay 10ka tahay yahuuddu macnaha ama macnaha waa soomaan oo waa maalin tacdiim ay ku sameeyaan oy weyneeyaan yacni waana soomaan sida noo imaan doonto marka taasoo kale iyaga sharcigooda mashruuc buu ku yahay oo sharcigoodii ayay ka mid tahay sawmu yowma cashuuraa annaga marka maxaa nala gudboon markaas taasoo kale seen ugu khilaafaynaa asalka soonka kuma khilaafayna sifadiisaan ku khilaafaynaa qaabkay u soomaan maahay qaab ka gedisanaan annaga u soomaynaa maxaa u daliila arrintaas nebiga sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam marka uu jideeyey in cashuuraa'da la soomo ayaa waxaa la yidhi yahuuddu waa soomaan yowma cashuuraa markaasu wuxuu yidhi lain cishtu ilaa qaabilin la asuumanna 9 haddaan sanad dambe noolaado maalinta 9 ayaan soomaya iyo 10 marka sifadii baan ku kala gedisanaanaynaa markaas iyagana 10ka keliyay soomaan annagana 9ka iyo 10kan soomaynaa markaa waa shayga diintooda mashruuca ku ah iyaga annagana macnaha naloo jideeyey sifada ayaan ku khilaafaynaa
asalka shayga ma ka tegayno oo soonkii uga tegi mayna ayaga wixii noocaas waa noocaas talabaad macnaha waxa ayaga mashruuc diintooda ku ah laakiin la nasakhay annaga diinteennu ay nasakhday مثلا waxaa kamid ah sabtiga oo kale maalinta sabtiga yahuudu macnaha waa maalin shaqadii laga reebay oo macnaha ayagu u ah macnaha usbuuca ciidiisa oo kale waa maalin saas u ah oo quraankii ku cadeeyo wasalhum an alqaryati allati kanat hadirat albahri id ya'duna fi sabti id ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an meeshaas alla ku sheegay isay u xeelaysteen iyo waxyaabahaas marka maalinka marka sabtiga ciidnimadiisa usbuuc ay ciid u tahay iyaga diintooda waa kamid tahay laakiin diinteenu mansuuq buu ku yahay sababtoo nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuxuu noo jideeyay jimcaha inay anagu ciid usbuuci ay noo noqoto ahlu kitaabkiina waa ka dhumeen buu yiri jimcihii nasaaradina waxay qaadatay maalin bay macnaha naga yahuudiina maalin bay naga dambeeyaan nasaaradana maalin bay yahuud ka sii dambaysaa oo sabti iyo xaday kala qaataan taas iyada shaki kuma jiro inaan ku khilaafayna marka wixii diinteena ay noo jideysay si ka gadisan ama ay diinteena nasakhday diinteenan ka raacayna marka iyada taas mukhalafadeeda wax shaki kuma jiro nooca saddexaad waxa uu yahay ayagu wax cibaadaad iyo caadaad ay la yimaadeen diintoodan aan ka mid ahayn warhabaaniyatan ibtadacuuha oo kale wixii alla uu yiri macna quraanka uu ku dhahay wix ayaga jeebkooda ay ka kansleen oo diintooda ay ku dareen fasaadkiisa waa iska muuqda iyadana ma looga dayanayo bal waa lagu khilaafaa saddexdaas nooc baa acmaasha macnaha kufaartu ay isugu jiraan acmaasha diiniga ee kufaartu ay sameeyaan saddexdaa kama dhexbaxayaan sidaas buu sheekhu islaam ibnu taymiya uu kusoo khulaaseeyey macnaha mawduuca kabacdi macnaha waxaan gudagelaynaa ama aan macnaha wax yar ka sheegaynaa xaalka ummadda siduu ahaa qabla bicthati nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam oo gogoldhig aan uga dhigaynaa nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam markii la soo saaray waxa la soo saaray waqti Allah subhanahu wa ta'ala dadka dhulka joogo carabtooda iyo cajamtooda iyo intooda badanba Allah uu carooday sababtoo ah diin macnaha meeshii Allah subhanahu wa ta'ala cibaado xaqa oo alla la caabudayo meesha ma aysan oolin ilaa dad dhif ah oo macnaha ahlu kitaabki diintoodii aan bedelmin ayuu ku taagnaa sidii waraqat ibn nawfal iyo kala ahaa ragaas oo kale ma ahane oo ayagiina macnaha intoodii badneed ay dhinteen inta nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam la soo saarin dadkuna laba nooc bay ahaayeen inta nabiga la soo saarin laba nooc kaliya bay ahaayeen nooc saddexaad ma uusan jirin kitaabi qof macnaha ahlu kitaab yahuud ama nasaara ah ee kitaabkiisa asagu macnaha kitaabkaygan haysanaya leh kitaabka uu ku dhagan yahay oo yahay kitaab mubaddal ah la bedelay ahlu kitaab mubaddal aaminsan oo haysto muharraf ah ama kitaab wax la nasakhay macnaha indiraastay haysto ee qaarkiis waxa ku yaalba aan la aqoonin wax alla subhanahu wa ta'ala ka soo degay xaqiisa aan ahayn iyo ummi macnaha aan diin iyo macnaha kitaab midna lagu soo dejinin carabtiba u badnayd marka ka oo ayagu iska aaday cibaadatul awthan asnaam in la caabudo oo diin ka raadiyo ayaga amr ibn luhayn ayaa shaam intuu aaday asnaam iyo waxba u keenay markaas ay macnaha marka meesha asnaamtoodaas ay isaga dul ictikaafeen labadaas qolo kaliya un baa marka adduunyada marka nabiga intaan la soo saarin ka hor dadku nooca sidaa bay ahaayeen dadkuna waxay ku sugnaayeen jaahiliye aad iyo aad u waaweyn ayay ku sugnaayeen sida aan macnaha sheegnay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu soo diray markaas ka bacdi nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuxuuna amray nabiga inuu dadka ku hanuuniyo wadada toosan siraatul mustaqim oo ku hanuuniyo waana midda Allah subhanahu wa ta'ala oo muslimiinta nabigana oo amray muslimiintana oo amray ugu yaraan 5 mar inay maalintii alla weydiistaan waa salaadaha macna ihdina siraatal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يهودي مركا كفر جودا أيا معناها هدنا وح أكيمد أو معناها أجانينا ماش أكيمد كفر اليهود إن عدم العمل بعلمهم إن علم جودا أي كعمل فلان أيا لجواي كفر جودا ماش أصبح معناها دتك أكيمد كفر النصارى ذا وحكيمد جهل إني ألك عابدان عن جهل إني ألك عابدان مركا لبدا كفر الله سبحانه وتعالى ummadan macnaha labada noocba macna Allah waa ka reebay oo waxa uu yiri ihdina siraatal mustaqim jidka toosan Allah nagu hanuuni dhaha macnaha siraatal ladina an'amta alayhim kuwa aad u nicmaysay jidkooda ghayril maghdubi alayhim tan waa yahuuda waa loo carooday sababtoo ah cilmigoodii kuma aysan amal falin wala dhaalin dadka baadiyoobe ee dhumayna waa nasaarada iyadana saas buu nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam marka Allah uu amray nabiga iyo ummadii macnaha ummadiisaba كبعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحنا شيء يدو سدا أيته الله وسدا صدنا إنه أمري هنونك إن نسأل إنه إن يدعي دهنته ومدان ضد بدن أو كم إذا إن يقلد أي كود يندونان أما يسكش به دونان
yahuudda iyo nasaarada ama macnaha acaajimta inay isku shabihi doonaan sida imaan doontaba farisiyiinta macnaha inay isku shabihi doonaan mushrikiinta yani إمام البخاري في صحيحه وحكوري من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنه رحي لا تقوم الساعة حتى تأخذ من أمتي ما أخذ القرون أمدي ساعد معناها دعي ميسو إلى أمدي إذا معناها دد كمذا محايا أمد كل ود موضع الراعيان دد أمبا معناها توسنان دونه ضوائف أمدي إذا كمذا إلى إكراعضو أمده هراء ماشي إيقفتين أي معناها إيقنا إيقفتان يهودي النصارى لو جيدة سيدة إيمان دونته شبرا بشبر وذراعا بذراع دودن يتاكتاكو شبرا بشبر وذراعا بذراع فقيل يا رسول الله مركز وحال لقو يري كفارس والروم فارس الروم وكلميا مركز النبي وحوير ومن الناس إذن ددكو ييهين مركز ددك أن شيغي ياك لواي كوير النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحاكلوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو شيغ أمديس إن يهود إن نصارى اسكو شبه دونتو إذن حديث كلو كشيغي لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ساس بدو دبقليس المعنى يهود إن نصارى إلى هدي حتى كقلان أبي سلوغالي إذا قد كيدا هدي كقلان أتكد بقشان إذن كان يعني ساد أولا زمي سانت لنا على إذن نقهرين ساس بو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو شيغي لكن هذا بشارة وحيت أمضان ودن إلى ساس وذراعين حديث معاوية في الصحيحين وحاكسوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنه هاي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله طائفة كالزول ميس قراء أمدي إذا كمذا إني حق كتابين مر والبو قفك إيجا خلافانا مر بما يرى الله سبحانه رسولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم marka taasna waa bishaaro ummadan inay isku raacaynin yahuud iyo nasaara inay ku dayato oo nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam noogu bishaareynayo marka waxaan ishaareynaa khasaa'ista ahlu kitaabka ummadan waliba macnaha waxyaabo ahlu kitaabka ay iyagu ku gaar yihiin oo ummadan macnaha in fara badan oo kamid ah caamo iyo khaasa labadaba ay kaga dayatay kabacdina markaas waxaan sheegi doonaa adillada ku soo aroortay in gaalada lagu daydo ama tashabbuhul kufaar har noqoto macnaa ciidahooda iyo cibaadaadka iyo wax kasta ha noqdaan iyo dharka iyo libaaska iyo waxyaabahaas oo dhan adillada ku soo aroortay gadaal baan ka sheegi doonaa awalan waxyaabaha yahuudda dabeecadda waxaa ka mid ah xasadka الله سبحانه وتعالى قرآنك وحاوكير ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم يهود وحي جعليه إن فربضان ومعناها أهل الكتاب كمذا وحي جعليستان إني معناها دينتين أتكلم بطانة كفار نقطان حسدا من عند أنفسهم وحكى لنا ما هو حاسد نمو وجيدك لما لها آيات كلا في سورة النساء الله سبحانه وتعالى وحاوكو شاقي ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وحي جعليستان سي أيضا أقالوا بين إن إذن كان أقالوا ذان فتكونون سواء اسكمت مركعد نقطان ساس مرك حسدك إيادنا معناها الله آيات أصبوكو شاقو أهل كتابك إن معناها صفة من صفاتهم أينيتهاي ومدانا معناها والله لي عامدوا ذا يخاسدوا ذا لفظة خاصدينا معناها وحالوغا هلي dad fara badan oo cilmi iyagana u nisba sheeganaayo ayaa xasadkii lagu arkay oo macnaha ummadihii horena macnaha annaga naga horreeyayna ka mida yani waxaan u jeedaa zamankan azmaantii ka horreysana ka mida zamankan gudihiisana macnaha la arkay oo dadkii cilmiga ku xasdaayo fulaan macnaha qofkaas muxuu cilmi u helay ama macnaha noocaas oo kale macnaha ku xasdaayo sheekhu lislaam ibnu taymiyana kitaabkiisa iqtidaa'u siraat almustaqiimka ayuu ku ishaaraa oo iska dhaaf in caamadiiba waxaa laga dhaxayla dadkii cilmiga u nisba sheeganaya fadlan can ilcaama caamadii ama dadkii kale iyadana macnaha waxaa lagu ibtileeyey sidoo kale macnaha amwaasha iyo sarwada inay isku xasdaan dadkii oo fulaan haddii macnaha alla uu maal siiyo ama uu wax siiyo jaah iyo wax lamidoo kale uu siiyo in lagu xasdo marka xasadkuna waxa ay tahay tamanii zawaali nicma nicmada qofka inay ka zuusho in la tamaniyaba marka taasna waa wax aad iyo aad u xun oo ummaddan lagu arkay waxaa kaloo ka mid a kitmaanu lcilmi cilmiga oo la qariyo alla wuxuu sifo uga dhigay ahlu kitaabka oo alla subxaanahu watacaala waxuu yidhi wayaktumuuna maa aataahum allahu min fadlihi waxay qarinayaan wixii alle ula yimid ee kitaabkooda ku sugan ee min fadlihi alla fadligiisa ah waxaa ugu weyn waxyaabaha yahuudda ay qarinayeen nebiga sala allahu calayh wacala alihi wasaxbi wasalam sifadiisa towreed say ugu taallo nebiga sala allahu alayh wasalam towreed baa lagu sheegay tilmaantiisii meeshaas bay ku taallay maca daalika axbaaru lyahuud waa qari jireen dadka macnaha iyagu iska beeralayda ama macnaha tujaarta ah lacagta ayay ka gura jireen mana u sheegi jirin nebiga tilmaantiisa marka barakadii ayay ka qaadan jireen say uga guran jireen waa ka qari jireen sifada nebiga sala allahu calayh wacala alihi wasaxbi wasalama
waxayna ka baqayeen haddii dadku ogaadaan nebiga inuu soo baxay inay nebiga u tagaano diinta isaga macnaha wixii diin ay u aadaan oo marka iyagii wixii la siinayo lacagta la siinayo meesha ay ka baxdo ummaddanna waa laga helay in fara badanoo sidaas oo kale ah oo xaqii iyagoo og qarinaayo maslaxad dunyawi ah darteed macnaha ama ha u qariyo mansab iyo jago uu haysto oo haddii macnaha shaygii uu sheego jagadii in laga tuuro uu ka cabsanaayo amaba macnaha xoogaa baraka marka loo soo aruuriyo inuu waayo uu ka cabsado hadduu caqiidadii iyo macnaha uu si fiican uu caddeeyo taa iyadana waa lagu arkay ummaddan macnaha waxaa kaloo ka mid a macrifatu alxaqi wa cadami asayri ilayhi xaqi in inta la fahmo haddana aan lagu soconin waa sifo yahuudiyadana ogow oo alla subxaanahu watacaala waxau yidhi waidaa qiila lahum aaminuu bima anzala allahu qaaluu nu'minu bima unzila calayna haddii la yidhahdo wixii alla subxaanahu watacaala uu soo dejiyey alla macnaha uu soo dejiyey rumeeya waxa ay yidhaahdaan nu'minu bima unzila calayna wixii annagana lagu soo dejiyey gaar ahaan un baan rumaynaynaa wayakfuruuna bimaa waraa'ahu wixii ka dambeeyana waa beeninayeen waana og yihiin nebiga inuu xaq yahay oo waxa lagu soo dejiyey shay xaqa uu yahay marka waa macrifatu alxaqi wa cadami asayri ilayhi xaqii macnaha in inta la garto haddana aan lagu soconin dawaa'if fara badanoo ummaddaanoo cilmiga u nisbo sheeganaysana waa lagu ibtileeyey oo isugu jirta mutafaqiha iyo mutasawifa dad macnaha fiqi u nisbo sheeganaya iyo dad tasawuf iyo suufinimo u nisbo sheeganaya iyo waxaasoo dhan ama dad macnaha liajli kownihi macnaha ra'iis mucadama uu yahay oo ummadda agteeda madax ama jago uu ka haysta darteed ayuu markuu xaqa fahma haddana uusa ugu dhaqmaynin lidaalika dad fara badan bay qaatumo xumo arrintaas ay ku riday waxaa ka mid ahaa dadkaas heraqle oo kale nebiga sala allahu calayh wala ali wasaxbi wasallam warqaddiisa markay soo gaartay akhbaartiisii loo sheegay abuu sufyaan uga warramay waxa uu yidhi haddii macnaha akhbaartan aad ii sheegtay ay run tahay fasayamliku mawdica qadamaya haatayni nebigaas meeshaan hadda aan ku taaganahay asaga ayaa macnaha milkin doono ayuu yidhi saas buu u rumeeyey haddii aan weliba macnaha awood aan u helay inaan gaarana latajashamtu ilayhi waa isku mashquulin lahaa wey waana isku kallifi lahaa haddii aan waanan macnaha si fiican baan u laazimin oon ugu dhegdhegi lahaa oo kamaa qaal macnaha sidaasoo kale ayuu yidhi markii dambena markuu damco inuu dadkiisii wax u sheego dadkiisii intuu isku soo ururiyey uu yidhi war ma rabtaan inaad hanuun iyo qida macnaha rushdi uu ku sugan yahay nebigaas raaca mulkigiinnana waa idiin sugnaanaya weligii insaan baad boqortooyadiina idinku sugnaanaysaa markaasay ku soo boodeen hal mar ku qayliyeen markaasuu wuxuu u cabsaday boqortooyadiisii naftiisiina waa u cabsaday boqortooyadiisiina waa u cabsaday markaasuu yidhi waxaan rabay un inaan idin imtixaano diintiina inaad ku adadagtiin iyo in kale markaasay u sujuudeen fa kaana aakhira sha'ni hiraqle meeshaasuu ku dambeeyey warkiisa marka madaxtinimada iyo kursiga uu haystay unbaa u diiday xaqii intuu ogaaday kadalika abu aalib asagana xaqii waa ogaaday nebiga inuu nebi dhaba u yahay waa ogaa oo haddana markii nebigu u yimid uu yidhi yaa cam qul laa ilaaha ila allah kelmaddaas macnaha dheh aan alle agtiisa hadhow kugula doodee waxa uu yidhi macnaha waa tii abujahl iyo cabdullahi bin abi umaya ay ku soo celceliyeen oo ay yidhaahdeen atarqabu can diini cabdilmuطalib oo markii dambe uu yidhi huwa calaa diini cabdilmuطalib marka waxyaaba fara badan dadkii macnaha xishood ay ashyaa fara badan ka xishoonayaan oo xaqii intay ogaadaan ashyaadaas darteed ay uga tegayaan ayaa macnaha jirto ummadihii horena laga helay dadka gobolkood macnaha isagoo xaqii uu u cadyahay sunnadii ay u caddahay ma rabaan inay ku qowlaan maxaa yeele waxay u cabsanayaan jago ay hayaan ama maal ay haystaan oo meel laga macnaha tamwiiliyo maal laga siiyo ama macnaha waxyaabo kale ay u cabsanayaan taxriifkaa ka mida waxyaabaha yahuudda lagu yaqaano kutubtoo la bedelo waa sima min sinsimaati alyahuud allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay min aladiina haaduu yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi kuwa macnaha yahuudda ah waxa ay ahaayeen kuwa macnaha kelmadda booskeeda ka taxriifiyo taxriif macnaha af ahaanna waa u taxriifin jireen oo raacina oo kale raaciina ay dhihi jireen oo macnaha agtooda min arrucuuna doqonnimo ka ah macnaha nebigay ku lamsi ku samaynayeen marka walidaalika alla waa ka reebay mu'miniinta waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquluu raacina waquluu undurnaa lafdiga bedela xataa undurnaa isticmaala intaad macnaha lafdi yahuud ay taxriifinayso aad isticmaali lahaydeen kaana marka waxa uu tilmaamaa marka yahuuddu waxaa kaloo lagu yaqaanay kutubtooda waxay rabaan intay ka bixiyaan waxay rabaan intay ku soo daraan ay yidhaahdaan waa kana kitaabkii alla subxaanahu watacaala faweylun liladiina yaktubuuna alkitaaba biaydiihim uma yaquuluuna hada min cindi illahi intay gacantooda ku qoraanay haddana alla u nisbaynayo subxaanahu watacaala marka sidaasoo kale waxaa kaloo alla yidhi yalwuuna alsinatahum bilkitaabi litaxsabuuhu min alkitaab taxriifka waxaa kaloo lagu fasiray macnaha taxriifu tanziil iyo taxriifu ta'wiil labadaba waa wada taxriif idan ummaddan in fara badan oo ka midana waa laga helay khaasatan dadka lagu ibtileeyey tilmaamaha alle inay macnaha ta'wiilka ku sameeyaan ee muctasilada iyo ashaacirada isugu jirto muctasiladana macnaha taxriif xataa waxay la yimaadeen lafdi ah ilaa macnaha qaarkood ay ka yidhaahdeen wakallama allaaha muusa takliiman
ماشي معناه وكلم الله ألا أوليه أي يحكدين وكلم الله موسى تكليما موسى الله هدلي أنت سوحي ديدين الله يا هدلي الله هدلي أي ديدين ومدان النسبة شيئا كذلك قوة أيغنا معنا الرحمن على العرش استولى يغنا واشبه هندت كان لذلك ابن القيم معناه نون يديسة وأكو شيء معناها لام اليهودي ومعنون اليهودي ولام جهم هما في الوحي عند عرش الرحمن زائدتان سيدا سبير لام جهم أو كسو دري استولى أو يري iyo nuunka yahuud xiddatun ay ku soo dareen xindatun ay yiraahdeen labadaba waxyiga zaa'id bay ku yihiin marka ummadan qaar fara badan taa macna waa laga helay tahriif tanziil iyo tahriif ta'wiil labadaba waa laga helay guluwiga ayaa kamida waxyaabaha ahlu kitaabka lagu yaqaano ummadan dad fara badan oo kamida laga helay hadan oo gaalada macna ahlu kitaabkii ku shabahay oo uga ekaaday الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب كأسوا كهذا يوحي يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق دينتي نحد جذب يغلوها قصة بيننا الله معنا شيء وحن حق أهين هكو لهننا ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه مركز عيسى الله شأن عيسى محايا عيسى غلوي قصة بين وحير هذين عيسى ابن الله عيسى ومعناه ويلك إلهي ثالث ثلاثة عيسى هو الله wax noocaas oo kale macna quluwi gaarsiiyeen ku sameeyeen ummadan iyadana macnaha waa laga helay waxyaabo alla oo u gaar yahay dad macnaha siinaayo macnaha anbiyada iyo awliyadii labadaba macnaha waxa kamid ah ashyaadaas marka abiyada macnaha burdaha ku sugan macnaha uu leeyahay buusiri fa inna min juudika ad-dunya wa darrataha wa min ulumika ilma al-lawh wal qalam fa inna min juudika ad-dunya wa darrataha adiga macnaha juudka deeqdaadu macnaha fa inna mi waxa kamid الدنيا وضرتها الدنيا آخرة ديقضا وحا كمدو يري معنى قيب كمدو وحا الدنيا آخرة لبضبا ومن علومك علم اللوح والقلم علمي قاقنا وحا كمدو قيب علمي قاقنا كمدو ووحا اللوح المحفوظ كي قلنك معنى كسوغا اللوح المحفوظ كي وحا كسوغا قلنك أنا معنى لغو صدري لغو قريب تاسمرك معنى يدو حيث اللوح المحفوظ وحا كوريقن يا أقول الله سبحانه وتعالى علم الغيب ووحى الله سبحانه وتعالى كل يسأل قاريه قرآنك أكثر من آية كسوها قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله السماوات يقولك واحد جواب واحد غيب أقملها إلا الله ألا كليه أب ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله وحتى هذا غيب الله أصبنا ذا فقل إنما الغيب لله إنما هو حصري إنما وحكى لما الغيب غيبك لله الله أصبنا هذا ليش مرك الله لها مرك نبي غيب وقال كذلك نبي أصيغ حوليه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء هذا غيبك أقول لاستكثرت من الخير خير كان بتصل لها أن زيادية أن ضلب لها معناه بتصل لها وما مسني السوء حمان نعمة تابتين مرك عالم الغيب وصفة من صفات الله الله إسكاله إن أنت لقى وريجي لو وريجي مركا مخلوق لو وريجي وحي كمتها غلوي قال سمينا كمتها كذلك مال الله أوصل معنا بركة جار أو سكوت شيء أنت لو وررت سفر لو هذه بركة جار ضدك اعتقادنا يعني غلوي كمتها مال عن كعبدي الله هنا لطوافي قبوره كمديهين إيو مركا وغلوي تأيدنا معناها رسولك قال له حد قد بوحبال لو يدست النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الدنيا النبي قال الله أبو ريا ليه غلوي كوين مالها ألا الدنيا عباده وأبوره وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا وما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق الله سبحانه وتعالى سماوات كان يقول كان دبني ما يحقبه وأبوري عبادنا الله وأبوري سبحانه وتعالى مرنا لما أرن الدنيا ده النبي قال له سمي مركا وحاس أن وغلوي أي معناها فرب بدنا ومعناها متصوفة حقه ذكيمي مركا ساد درادد مع مركا موضوع غلوي قال معناها موضوع دار النبي قال وحير صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم والغلو في الدين iska ilaaliya quluwiga diinta lagu sameeynayo taabo nabiga sallallahu alayhi wasallam umada uga digay waxa kale oo kamid ah ashyaada ahlu kitaabka lagu arkay ee ummadan in fara badan kaga daysatay daacatul mu'azzamin dadka la weyneeyay oo macna daacadooda laga hormariyo Allah iyo rasuulkiisa dadka la weyneeyay ama macnaha culimada ama macnaha ama madaxda oo laga hormariyo hadalkooda hadalkii rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wasallam ama hadalkii Allah taa iyadoo la arkay Allah subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku yiri اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أحبارته علماء اليهود إيا النصارى علماء الرهبان صوفية وحا أي كدكتين ربيال بي كدكتين بو الله يري دادكي با ربيال كدكتين كواسا ربيال لغا دكتين عدي بن حاتم الطائي حديث ترمذي كسوغان وحو يري يا رسول الله ما أيسن كدغنين إلهي يا رسول الله أرباب إلهي كما أيسن دغنين
markaasuu nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuxuu yiri soo intay wax xaraan u xalaaleeyaan soo kuma is raaci jirin dadkiina shay xalaal ana xaraamsa ugama dhigi jirin muku raaci jirin waa ku raaci jireen markaasuu nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri tilka cibaadadooda waa taasa shay alla xarimay hadduu qof bani aadama ku xalaaleeyo ama shay rasuulka uu xarimay ala lisaani nabiy lagu xarimay sallallahu alayhi wa alihi wasallam haddii qof gadaal intuu ka yimaado shaygan waa xalaal uu ku yiraahdo haddaad asaga hadalkiisa ka hormarisid waxaad noqotay macnaa sifa min sifaati macnaha waxaad shabahday yahuud iyo nasaaro aayaddaasana macnaha markaas qofkii haysato taana aad bay u fara badanta dad fara badan aayaddii xadiidkii loo sheegaa fulaan sidaasuu yiri ayaa meel ugu taalo rasuulka saana u tukan jiray rasuulka kadaabuu samayn jiray intaas ayaga macnaha fulaana yiri kaliya un bay ka rabaan taana marka iyadana macnaha taqliidkaas ummadii waa ku fara batay weliba wax kalena kama imaanin ummadii macnaha dad bay iska caleema saaratay ama ay weyneynayaan xataa ma la fiirinayo rasuulka hadduu qofkaas ka hor yimaado iyo hadduu alla ka hor yimaado iyo yaa la hormariyaa ma la dhahayo marka dadkii unbaa la iska saarsanaya dhow taana marka iyadana dadkaas baa lagu arkay ummaddaana in fara badan oo ka mida waa lagu arkay muqallidadaba macnaha ugu badnaadaan dadka taqliidul acmaaga samaynayo waxaa ka mid a waxyaabaha ummadihii hore lagu arkay ee alla oo rasuulka sal ly slam ummaddan uu ka reebay dad fara badanoo ummaddaanna lagu ibtileeyey waxaa la yidhahdaa ruhbaaniyada macnaa ruhbaaniyada waxaa la yidhahdaa qofka inuu macnaha intuu ka go'o nolol iyo waxaasoo dhan uu ka go'o taqashuf iyo intuu sameeyo macnaha uu yidhaahdo aniga macnaa zuhdigii sharcigaana intuu ka baxo zuhdigii sharciga ah intuu ka baxo ee markaas intuu duurkaas galo uu yidhaahdo marka mana guursanaayo waxna macnaha ma cunaayo aniga cibaado keliyaan u gogo'ah inuu yidhaahdo taa iyadana marka ruhbaaniyadaas nebiga sal ly slam waa reebay qur-aankana inay macnaha nasaarada iyaga iska keensadeen oo aan alla ku farad yeelin qur-aankuu noogu sheegay warahbaaniyatan ibtadacuuha maa katabnaaha calayhim ila ibtiqaa'a ridwaan illah laa ruhbaaniyata fi lislaamna nebiga waa laga wariyey inuu macnaha u dhahay tan kale macnaha iyo xadiid anas fi saxiixayn dadkii nebiga intay guryihiisa soo booqdeen cibaadadiisa wax ka weydiiyey ee yaraystay ee markaa midkood uu yidhi ama anugu wuxuu yidhi haddii aan ahay fa asuumu walaa uftiru weligey waa iska soomanaana mana afuraayo midna wuxuu yidhi ama ana falaa atasawaju nisaa haweenka ma guursanayo mid kalena ama ana fa usallii walaa arqudu waa tukanaa habeenkii oo dhan mana seexanaayo nebiga markii loo sheegay waxuu yidhi idinka maa saas tiraahdeen markaasuu yidhi nebiga ama ana fa asuumu wa ufdiru anugu waan soomaa waana afuraa wa usallii wa arqudu habeenkiina waa tukadaa salaatuleyl waana seexdaa buu yidhi wa atasawaju nisaa haweenkana waa guursadaa faman ragiba can sunnatii falaysa minii qofkii sunnadeyda ka leexdana igama mid ah aniga dadkii marka waa ka hareen saxaabada marka nebiga markay saa ka maqleen ruhbaaniyada iyadana waa saas wax lagu yaqaano ta kale macnaha waxyaabaha kale ummaddan lagu ibtileeyey ahlu kitaabkiina laga helay waxaa ka mid ah itikhaadi alqubuuri masaajid qubuurta in masaajid laga dhigto meel lagu tukado in qubuurtii laga dhigto nabiga sala allahu alayh wala alihi wasaxbi wasalam xadiid saxiix muslim saxiixu albukhaari ku sugan min xadiidi caaisha 5 maalmood ka hor intuusan dhimanin ayaa waxa uu yidhi lacnatullaahi cala alyahuudi waannasaara yahuud iyo nasaara korkooda lacnad ha ahaato ittakhaduu qubuura ambiyaa'ihim masaajida ambiyadooda qubuurtooda ayay masaajidye ka samaysteen meeshii ambiyadoodii ay ku dhinteen ayay meel loo jeesto salaad loo tukada ay ka dhigteen marka taana macnaha ummaddan waa lagu ibtileeyey in fara badan oo ka mid a rubamaa waxaa la arkaa amaakinta qaar haddaad tagta masjid aan qabri ku oolinba inaad macnaha weysidba salaadna kuma bannaana masjid qabri uu ku yaallo karaahat taxriim waay xataa ma ahan karaahad oo tansiih iyo wax la mida dadka gobolkood waxa macnaha loogu sheekeeyey ama dad cajalado waxay ku soo duuduubeen ee ah sababta loo xarimay waxa ay tahay nijaasta macnaha liajli nijaasa loo xarimo oo ay leeyihiin ciiddu haddii ay qoyan tahay qofkii macnaha dhacaankiisii iyo wixiisii baa kor soo maraya marka saas baa loo diiday iyo khuraafaad waa waxaas rasuulkana ma sheegin bal ujeeddadu waxay tahay tacdiimka ayaa la diidaa nebiga sal alla ly slam markii loo sheegay nasaaradii iyo yahuuddii kanaa'istooda waxay ku dhigtaan masawiro iyo dadkoodii saalixiinta intay ku tamaasiil u sameeyaan ayay u tukadaan markii umu xabiiba ay yidhahdeen kaniisad ay ku soo arkeen ardulxabasha waa kii nebiga sal alla ly slam uu yidhi lacana allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura ambiyaa'ihim masaajid waxay ka dhigteen ambiyadooda qubuurta meel lagu tukado xadiid saxiix muslim ku sugan nebigu wuxuu yidhi laa tusalluu ila alqubuuri walaa tajlisuu calayha qubuuraha xaggooda ha u tukanina hana ku fadhiisanina ujeeddadana waxa ay tahay dariica shirkigaa macnaha ayaa meesha ka soo dhowaanayo saasaa marka loo naahiyey oo loo diiday shirkiguna siduu ku bilowdayba asalkiisa saas ayuu ahaa qofkii rabana ha akhriya tafsiirka suuratu nuux waqaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquusa wayacuuqa wanasran meeshaasoo macnaha uu ka arki karaa nacam
intaas marka iyo in kale ka fara badan ba macnaha waa waxyaabaha ahlu kitaabkii lagu arkay ummadan in fara badan oo kamid ah diin waliba u nisba sheeganaysana lagu ibtileeyay marka wax yar waxaan ka sheegaynaa adillatul kitaabi wa sunna wal ijmaa in mukhalafat ahli kitaabka in la khilaafo macnaha la hadigooda muuqda iyo midka qarsoon labadaba lagu khilaafo in kitaabka uu tusay quraanka sunnada nabigana ay tustay ijmaaca ummadana uu tusay intaba macnaha daliil in macnaha looga hayo ayaan wax yar macnaha aan ka sheegaynaa qaala tacaala allah subxaanahu watacaala waxa uu yidhi fii suurati aljaathiya ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وحو الله صور شيغي غير بني إسرائيل وحي لسيي أي الله سبحانه وتعالى صور شيغي ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين انت اسمرك اللي يسوق الدري وآتيناهم بينات من الأمر وحدنا معنا شريعة عد معنا وحدنا والسيي مركز كبعد وإس خلافين بو الله يري بغيا بينهم gardarsi iyo macnaha baqi ay samaynayaan darteed ay isu khilaafeen markaasuu alla subxaanahu watacaala wuxuu yidhi rasuulka isagoo la hadlaayo ummaddiisana oo khitaabka ku socdo uma markaas dabadeed jacalnaaka waxaanu ku yeelnay calaa shariicatin shareeco korkeed oo min alamri diinka ka mid ah shareeca macnaha sunno iyo waajibaad iyo caqaa'id ka kooban ayaan adiga ku siinay oo korkaaga yeelnay fatabichaa marka raac buu alla yidhi subxaanahu watacaala walaa tattabic ahwaa'a aladiina laa yaclamuun kuwa aan waxba ogeyn ahwaa'dooda iyo hawadooda ha raacin oo macnaha ku dayanin sidaabuu alla subxaanahu watacaala uu dhahay marka ahwaa'ahumna culummadu waxa ay ku fasireen maa yahwuunahu wamaa calayhi almushrikuuna min hadyihim ahwaa'dan la sheegaya waxa ay tahay waxa naftoodu ay u hawoonayso iyo mushrikiinta waxa ay ku sugan yihiin ee dhaqan ah waa wixii mushrikiinta ay ku sugan yihiin ee dhaqan ah saas waa ahwaa'ahumtan diintooda baatilka macnaha keensanayo iyo wixii la xiriira intaas waxaa kaloo alla subxaanahu watacaala uu yidhi waaladiina aataynaahum alkitaaba yafraxuuna bimaa unzila ilayka dadka macnaha kuwa aan kitaabka siinay ahlu kitaabka yafraxuuna bimaa unzila ilayka wa min alaxzaabi man yunkiru bacdahu axzaabtii waxaa ka mid ah qolooyin macnaha inkiraaya wax lagugu soo dejiyey adiga qul inamaa umirtu an acbud allaha walaa ushrika bihi ilayhi adcuu wa ilayhi ma'aab محل شاهد كما كواكن وكذلك أنزلناه حكما عربيا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له وحوله وحن كسو دجيني حكم عربي آيان كسو دجيني يعني قرآن عربي آيان كسو دجيني ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق haddii aad marka raacdid ahwaa'dooda aad raacdid markii uu kuu yimid cilmi ka gadaale markaad ogaatay oo alla oo xaggiisa cilmi kaaga yimid oo shareeco alla xaggiisa ay kaaga timid haddii aad hawadooda iyo dhaqanka kufaartaas aad raacdid maa laka min allaahi min waliyin walaa waaq wax macna mid ku dhowro iyo mid weli kuu noqdo xag alla kama helaysid buu yidhi alla subxaanahu watacaala aayaddan iyadana macnaha waa ku caddahay mutaabacadooda iyo waxa diinta weliba iyaga ay diin ahaan u samaynayaan iyagu kuma sii jirto dhaqankoodii ayaa waxaa la leeyahay macnaha ka tag maxaad u malaynaysaa diinkooda marka waxa iyaga ay diin ahaanba ay ula gaar yihiin waa ka sii marka darantaa iyadana waxaa kaloo alla subxaanahu watacaala uu yidhi walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara yahuud iyo nasaaro kaama raalli noqonayaan xataa tattabica millatahum ilaa aad ka raacdo diintooda xataa tattabica millatahum saasuu alla subxaanahu watacaala uu yidhi markaasaa waxaa la yidhi walain ittabacta ahwaa'ahum bacda aladii jaa'aka min alcilmi markii horena millatahum ayaa la yidhi diintooda diinaa laga cabiray ahwaa'du inay diin tahay ogow walain ittabacta ahwaa'ahum baa markii dambena la yidhi yahuud iyo nasaare kaama raalli noqonayan ilaa aad diintooda ka soo gasho adiga walain ittabacta ahwaa'ahum haddii aad ahwaa'dooda raacdidna min bacda aladii jaa'aka min alcilmi maa laka min allahi min waliyin walaa nasiir markii horena millaa laga cabiray markii dambena ahwaa idan millada iyo ahwaa'du waa isku mid ahwaa'diina waa dhaqankoodii iyo diintoodii iyo waxaas oo dhan waa isugu jiraan marka diintooda o dhan qofkii raacana asagu macnaha waaba qof 100% dhumay qofkii ahwaa'dooda iyo dhaqankooda wax ka mida raacana diintoodii ayuu wax kaga shabahay tashbiiha meesha macnaha ku jira saas waaye oo sheekhulislaam ibnu taymiyana macnaha uu sheegay waxaa kaloo alla subxaanahu watacaala uu yidhi walaa takunuu kaaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma jaa'ahum albayinaat waulaa'ika lahum cadaabun cadiim ummaddan markii lasoo sheegay ummaddan lasoo sheegay inay macnaha waajib ay ku tahay inay midoobaan oy mid noqdaan tafaruqa iyo waxa noocaas oo kalena ay iska ilaaliyaan ayaa alla subxaanahu watacaala waxa uu sheegay ouna leeyahay ha noqonina sidii macnaha kuwii kala tegey ee diinkooda ku kala tegey haddana iskhilaafay markii aayaadka cadcaddaa ay u timid kabacdi wa ulaa'ika lahum cadaabun cadiim
آيات كلا ألا وحولي إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله إذا معناه حكوعد إن دتكاس وكلا الله سبحانه وتعالى هنقننا أوليه نبي الله موسى يا هارون الله سبحانه وتعالى وحويري قال قد أجيبت دعوتكما ولا أجيب دعوتي النبالي روحي أد معنا دلبتين فاستقيم دعوتي النوال أجيب فاستقيم توصنا هذا محا مركز أدنى لغو سيحري ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون كوا أن وحبا أغين جدكو ذا هراعننا ليري كوا أن وحبا أغين جدكو ذا هراعننا إذا معناها شبهننا دادكاس أن وحبا أغين كفارتنا مركوا دادكاس للشيء نبي الله موسى ولالكيس مركي ومعناه وقتقايا دادكيسنا وحويري اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ماشان معناه جوج بويري وحاجاجنا معناه ولا تتبع سبيل المفسدين كو دولك فسادين يا شركه يا معناه معاصي كو فسادين يانا جدكودا راعين وحو الله سبحانه وتعالى قرآنك وكير وكلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى قفكي معناه الراعو قفكي لا دنعتم رسولك من بعد ما تبين له الهدى مركو هنونك ويمد كغدال مركو وحو اوغاداي هنونكي قرآن iyo sunna ay u timid ka gadaal ninkii nabiga macnaha la dhinactamay dhinac mara hadigiisi macnaha dhinac maro ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين راعوا مؤمنين تجدكودا جدان أهين إذن وحي لازم سنيسا مركا قفك مؤمنين تخلافه إنه كفار جدكودي مركا أقاضي الراعي عاكروا الله سبحانه وتعالى ويروا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أهواء ذودان هراعنين أبو الله سبحانه وتعالى أولهي نبي أيوة وحا الله شاقي إلا سيئي كتاب وليبا معناها النسخي كتبتي كهريي أهواء ذودان هراعنين أيها الليري آيات كقدالنا الله سبحانه وتعالى وحويري واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك إذ كان الجير معناه إني كافد ليان وحي الله وكوسو دجي وحكا مدأ عاكروا الله سبحانه وتعالى قرآن كساسو كلا معنى وكشاق سورة التوبة مثالنا وكبحي منافقين تأيي معنى مؤمنين مثال وقدقي المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إلى آخر الآيات إلى وحكسو قارتا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض منافقين تنسيف على قشاقي مرك منافقين التي الماما يهدنا معنا الله سبحانه وتعالى وحويري كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا مركاسا وحالي فاستمتعتم بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا فساس بقى الله سبحانه وتعالى أشياء ذاتك منافقين تمعنا الله شيء تانا معنا مؤمنين تمركوا الله سبحانه وتعالى وكور رماينا ضد معروف كإسفر منكر كإسكر ريبا معنا أيو تلمام وقدقي هي الصلاة معناها أوغو رسول الله أطيع رسولك سأطيعه أيو تصال وقدقي منافقين تنوحال ليري وحاد نقطين كالذين من قبلكم ذاتك إذن كور ري إذنك اليهودية النصارى أما فرس يوحان كلا معنا مشركين أو كلا أياد نقطين أو مركا يقول نسيبكو الدنيا إساقرها حيثي مركا خوض كنا معنا ومعاصري يوحص ولا نحن ضباشو أما معنا وبدعدي أو لا لحظة باشو نصيبك إيه وحل الشيء أنا معنا ومعاصري إيه نصيبك الدنيا إيه وحياة بهاس تعالى الله سبحانه وتعالى مركماشس أيه ساقوا عدي وخذتم كالذي خاضوا وحيت الماميسا إلى اتباع الشبهات وبدعدي إيه شبهاتك إلا الراحة والضبالتين سيدتك إذن كهري إيه الضباشين دين تودي يعني مركو حقيتها بدعدي سيء الراعين أو كلا إذن كان بدعوين كادوا لحقشين ماشي كلا الله سبحانه وتعالى أوليه فاستمتعتم بخلاقكمنا نصيب كان يوحن للشيء وأمواشو ذي يصير قطن تاني معناها ومرض الشهوة شهوة معناها جردي لبدا معناها مرض الشهوة أي مرض الشبهة أو ضدك إذن كهري لقاها إذن كان ولا إذن كهلوا لي الله سبحانه وتعالى ومنافقين لقاها لي أما سنة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حديث كداء شيئنا كم إذا من تشبه بقوم فهو منهم صحيحين وحكسوا من حديث عمرو بن عوف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنه رأى أبو عبيدة أن أبا عبيدة قدم من البحرين بمال أبو عبيدة أي بحرين مال خلص وقالي فوافى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة الصبح رسولك أصحاب تيسي مركا قار كميدا أنصارت ولي بالرواية البخاري أي شيء أي مساجد كأي صوغالين صلاة الصبح والنبي كصوغالين فتعرضوا له واسموا موجي النبي صلى الله عليه وسلم بل مالك إن وحلق السيئة مركز النبي صلى الله عليه وسلم وحويري أظنكم علمتم أن أبا عبيدة قدم من البحرين بمال
waxaan malaynayaa in macnaha aad maqasheen Abu Ubayda in maal uu Bahrayn kala soo galay markaasay haa yiraahdeen yaa rasuulallah nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuxuu yiri abshiru wa amilu ma yasurrukum bisharaysta waxaadna rajeysaan wax idin farax geliyo oo amilu ma yasurrukum wallahi mal faqra akhsha alaykum faqri idin kaga ma cabsanaa ayuu yiri ولكن أخشى عليكم الدنيا لكن الدنيا إذن كجعل صنيا فتنافسوها كما تنافسوها الدنيا دي مركز إذن كأتكتر تنتان سيأكتر تمين أهل الكتاب كأوكال وكعلنا مركز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تاسوا معناها وحدتك الله فرايا معناها زخاء الدنيا الألال كذا يحيبها الله فرايا النبي صلى الله عليه وسلم وكرر أمضى أن يسكجد تنافس إلى الدنيا وأن يسكجد أهل كتابك تشبه اسمه النبي صلى الله عليه وسلم حديث أكرر حديث أبي سعيد في صحيح مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما اتقوا النساء الدنيا معناها تعب سنة اسكائل عليها هوان كان اسكائل عليها فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فتنة غير بني إسرائيل تي أبوه الرئيسي وحي كغتمد هوانك ماشي أصل النبي وحكو أمره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هوانك معناه أقلقل كودة إلا لا خالي النقضة fiirfiirintooda iyo waxyaabahaas dhan la iska xiro shartaas haweenkiina min baabi awla ayagana inay xijaab iyo macnaha iyo astur ay laazimaan ayaa macnaha ayaa lagu amraa si aysan u dhicin marka fitnadii reer bani Israa'iil ku dhacday oo kale xadiid kale nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam waxa uu leeyahay oo fi sahih al-bukhari ku sugan reer bani Israa'iil fitnada meeshay kaga timid waxa ay ahayd markay haweenkoodu isticmaaleen timaha macnaha timaha lagu kabo baruukada macnaha markay isticmaaleen ummadina nabiga waa ka reebay la'ana Allahu al-wasila wal mustawsila tasbu nabiga sallallahu alayhi wasallam oo dhahay fi hadithin tawil waxa kaloo Allah nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam sunnadiisa kamida oo nooga reebaa tashabbuha tahaarada salaada macnaha siyaamki xajki كذلك عقيدتي iyo macnaha akhlaaqdi muaamalaadki baa'i kulli inaan ahlu kitaabka ka dayarno nabiga sallallahu alayhi wasallam sunnadiisa waa ku reebay tahaarada waxa kamid ah sahih muslim waxa ku sugan awalan tii hore inta aanan ka bixin macnaha mawduuca adduunyada ku saabsan in macnaha tanaafuska adduunyada aan looga dayanin ahlu kitaabka xadiis waxa jira muslim ku sugan min xadiis abdullah ibn umar bin aas nabiga sallallahu alayhi wasallam uu dhahay idha fatahtum kunuz faris haddii aad furataan faris iyo ruum kaydadkooda iyo dahabkoodii aad heshaan oo gacanta ku dhigtaan ay qowmin antum qoladeed noqonaysaan idinku ay qowmin antum yaad noqonaysaan markaas dad sidee abaad noqonaysaan saxaabadiisu ku leeyahay nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam markaas Abdurrahman ibn Auf waxa uu yiri nakunu kama amarana Allah wa rasuluhu alla iyo rasuulkiisa sida ay amraan ayaan noqonaynaa markaas nabiga sallallahu alayhi wasallam uu yiri tanaafasuuna waa ku tartamaysaan buu yiri ثم تباغضون ثم تحاسدون واسكو حسديسان هذنا ثم تباغضون هذنا واسو دبجيدينيسان اما ثم تدابروا او ثم تدابرون واسو دبجيدينيسان markaas marka qaarkiin qaarka kale ay macnaha dadka ducafada ay macnaha intay madax u noqdaan ay ciriirinayaan ay macnaha ku adkeynayaan ay ku adkaanayaan taana nabiga sallallahu alayhi wasallam waa ka warramay iyadana fitnada adduunyada macnaha waa waadix oo shay macnaha wali wadankan loo joogo waa muuqata dadkii tanaafus fi dunya macnaha masaajidii dadkii macnaha inaan lagu arkaynin ama macnaha aqalliya aad macnaha u yar in macnaha dadkii ay diintii barashadeedii adduunyadii baa dadkii macnaha in fara badan oo kamid ka jeedisay ثانيا معناها dad fara badan diintii ay yaqaaneen ama wixii ay xifdisnaayeen ama quraan ama ahadiith ama macnaha diintoodii ayaa waxa arkaysaa macnaha inay kaga mashquuleen adduunyada dadkana macnaha adduunyada diinta ay kaga mashquulaan dib iyo macnaha nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuxuu kaga digay waa u iimaanayaan macnaha bani aadamka dabeecadiisayna kamid tahay adduunyo jacaylka laakiin nabiga wuxuu sheegay in lagu daaweeyo tawba mar walba qofkii bani aadamka inuu soo noqdo oo macnaha isdahiro رسولك صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس في الصحيحين وحولها لو كان لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان هدي بني آدم كوادي لسي لبا وجعلان لها وفي رواية أنه حيلا معناها هدي لبا وادي لسي لسدع وجعلان لها ولن يملأ فاه إلا التراب أفكي سنعرق ببوحسه ويتوب الله على من تاب ماشي اسمرك ويتوب الله على من تاب علماء وحير هذه ما دام بني آدم كسان أو يهي هكذا ما يسترقف كيس توبة مرولو أو توبة يانا الهلمامين الله وحوليه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ولي بالرمضان اللي جوغا ددك وحال الروا إن معناها وحفي عن أي معناها رمضان كالله سبحانه وتعالى فرصة في عن بودتك سيئ
إن معنى من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه marka in laga faa'iideysta la rabaa bishan oo kale dadkana umuuman inaysan adduunyada macnaha saas aysan u mashquulinin oo mar walba qofka macnaha uu isa soo qabto maxaa yeelay nabiga waxa uu sheegay waxa faqrigu inuu ummadan uga cabsanaynin qofka qanaacana waa isku soo qaban karaa intuu alla siyaado ku qanco iyo xadiid kale saxiix muslim ku suganaa jiro nabiga sallallahu alayhi wasallam uu dhahay unzuruu ila man huwa asfala minkum qofka idinka hooseeya fiiriyo dhahay wala tanzuruu ila man huwa fawqakum qofka idinka koreeya fiirinina wadaalika ajdaru an laa taxqiruu nicmat allah saasaana ku habboon alla nicmadiisa inaydan xaqirin qofka alla nicmadiisa ma xaqiraayo haddii uu fiiriyo qofka ka hooseeya caafimaad haddii uu qabo qofkaan caafimaadka qabina fiiriyo haddii macnaha xoogaa uu haysto qofka aan waxba haysanina fiiriyo laakiin haddii qofka ka koreeya uu fiiriyo adduunya sida uu eryaayo waa soo qabanaysaa marka waana dhimana isagoo aakhira aan waxba geysanin حديث أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم عليه المكثرون هم المقلون يوم القيامة dadka xoolaha badan adduunyada ku haysto aakhira ayaga ugu xoolayar aakhira ayaga ugu ajir yar illa man qala bil mali hakada wa hakada wa hakada wa hakada wa qalilun ma hum bura nabi sallallahu alayhi wasallam waana yirihin dadkaas oo kale marka tahaarada waxyaabaha macna nabi sallallahu alayhi wasallam uu amray in macnaha looga dayan ahlu kitaabka ama lagu khilaafo tahaarada kamida صحيح مسلم وحاكسوا من حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم إنه دهي إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة يهود وحي آيان هديها وانتو حيشو يذا معناها وانكو هدي حيض أوكي ماذا لم يؤكلوها ولم يجامعوها ما أيسن معناه أتجي جيرين ما وحنا لما يسعوني جيرين وكديران جيرين حتى وحنا معوني جيرين جماعنا وهم تجي جيرين في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أصحاب النبي سؤالين مركا سأله وحسود جي ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن مركا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فسر يا وحا اصنعوا كل شيء إلا النكاح وحول بكل سماية معناها نكاح معناها الجماع معها نكاحنا بمعنى الجماع هأتجنين أن معها أنت كلا واحد أنت سماية معناها استمتاعي إن وحلا لعنه إن لا معناها معاشرة وحاسونا بالبنية مركا يهود أرنتاس مركي أي مقلين أي وح أي رهذين من كانوا معنا وحكى مرة أن يدعى من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه معناه محمد شيء إنه وقتها مرة وحول بانو خلافه واكل أي رهذين مركا يهود إلا خلاف أساس بأي ديدا يعني مركا dadka qofkii marka muslimka aha muxuu yahuud marka ugu dayanaya marka waxa kale oo fi sahih salaada kadalika sidoo kale iyadana nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam hadith amr ibn abasa waxa ku sugan fi sahih muslim inuu nahiyay saddex waqti amr ibn abasa waa dheeriyay hadithkiisa laakiin maxallu shaahidkiisa waxa uu yahay inuu yiri ya rasuulallah callimni bima allamaka allah waxa alla uu ku baray bar wa ajhaluhu anna an jaahilka ahay markaas uu wudu iyo fadligiisi ay uga sheekay amr ibn nabiga sallallahu alayhi wasallam waqti wixii uu baray waxa kamid ah marka salaada subax marka aad tukato ka bacdi qorraxda markay soo baxayso ay cirka ka soo baxayso salaadha tukanin buu dhahay iqsir aan salaada macna ka joog markaas nabiga waliba u sheegay fa innaha tatlu'u bayna qarnay shaytaanin waxay ka soo baxaysaa shaytaan labadiisa gees oo kama qaala sallallahu alayhi wasallam وحين إذن يسجد لها الكفار وقت قاسنا قال هذا سجود لها قفك مؤمن كهذا وقت قاس صلاة كنايو طبعا سجود يا قرح ذا أما شيطان سجود اسمها يا سيا لكن والله رأيه بتات سيدي ذا هذول لو أجي هذا قفك مؤمن كأنه سجود يعني نحاس يا وحال ليه هكذا هذا سيدي ذا ما دام قال وقت قاس سجود هشبهن قال هكذا يعني وواضح تنمرك وقت معناها عرك قرح وحين يقوم قائم الظهيرة markay cirku ay qorraxdu ku taaganta cirka bartankiisa ee waqti zawaalka la yiraahdana salaada ka gaabso xiina idin tusjaru jahannam ala shidaabu yiri markaas wal ciyaadu billah marka kale macnaha oo ka reeb waxa ahayd qorraxda markay dhacayso fa innaha taqrubu bayna qarnay shaytaanin bay ka dhacdaa shaydaanka oo ku dadaala inuu la dhaco markaas meeshaas jihadaas uu macnaha iska muujiyo si sujuud markaas isaga ay ugu dhacdo marka waana laga reebo waqtigaas xadiid amr ibn abasa mawaqit salaadana laga reeba jirto li ajli macnaha tashabbuhas dirtidna looga reebo ka iman karo marka mukhalafadu inay meel walba galaysa fiiri ahlu kitaabka la khilaafayo waxa kamid ah tahwiilul qiblada in la wareejiyay ayaa kamid ah sayaqulu sufahaa'u min an-nas ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alayha marka qibladan la wareejiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa aad u jeclaa qibla in looga dhigo kacbada marka Allah subhanahu wa ta'ala qibladii waa baytul maqdis waa ka soo wareejiyay markaas waxa loo wareejiyay dhinacan macnaha iyo kacbada
yahuudda markuu nebiga baytulmaqdis xaggiisa u tukanayay ayaa waxay ku sheekayn jireen hadda qibladeennimo buu soo raacay xoogaa u suga macnaha diinteennana waa soo raaci doonaa bay yidhaahdeen bal sida ay ugu farxayaan fiiri waa shay alla oo amray nebiga sal lla ly slam oo iyagii macnaha wax ka waafaqsan marka macnaha waxa ay cibaadaadkooda wax ka waafaqsan saas bay marka aad ay ugu dadaalayaan marka waa in layska jiraa gaalada marka aan loo arkin sidii dad aan dadaalaynin oo kale inaan laga dhiganin oon laga seexanin oo hadigooda marka la ogaado dadkan inay jecel yihiin in iyaga oo kale la noqdo oo layska dhigdhigo marka waa in annagana sida kale marka aan nebiga sal lla ly slam sidoo noo jeediyo aan samayno cumar markii uu baytulmaqdis uu tegey kacbilaxbaar oo markii hore yahuudi ah soo islaamay laakiin markii dambe waana taabici sida saxiixa kacbilaxbaar marka kacbilaxbaar ayaa waxa uu yidhi xaggee baan ku tukadaa markaasuu yidhi khalfa sakhrada gadaasheeda ku tuko markaas baytulmaqdis oo dhan waa wada qaabilaysaa markaasuu cumar ibn khadaab waxa uu ku yidhi daahayta alyahuudiya yahuudiyadii baad markaas shabahday buu yidhi adigana waa iska dhaafi cumar marka waxa uu yidhi usallii xaysu sallaa rasuulullahi sala allahu calayh wala ali saxbi wasalam meeshii nebiga uu ku tukaday markii la dheelmiyaan ku tukanaa buu yidhi cumar ibn khadaab meeshaasuu ku tukaday inta la xaaqxaaqay ayuu meeshii ku tukaday waa shay iyadana macnaha cumar ibn khadaab oo macnaha ijtihaadkiisii oo isagana macsoo nebiga raacaya sala allahu calayh waala alihi wasaxbi wasalam yahuuddana macnaha iska ilaalinaayo ayuu sidaa u sameeyey khalfa sakhra kuma uusan tukanin saas darteed culummada waa reebeen khalfa sakhra in lagu tukado iyo meeshaas meelaha qofku markuu meeshii tago in meeshii nebiga uu ku tukado un markaas uu ku dadaalo uu ku tukada waxba sakhrada uusan gaar u raadsanin meesha sakhrada ay ku taalo salaada macnaha qaabka loogu macnaha waxaa nebiga sal lla ly slam salaada ka midoo uu reebay kadaalika in nebiga isagoo fadhiyo waxaa jirta inuu fadhi salaad macnaha imaam dad ugu noqday mar nebiga uu faraskiisii ka dhacay ayaa u dhaawacmay marka bil intii ah ayaa uu jiranaa marka oo dhaawaca u ahaa nebiga sala allahu calayh wala ali wasaxbi fadhi ayuu ku tukaday saxaabadii gadaashiisana waa istaagnaayeen fa ashaara ilayhi marka waa u ishaaray fariista ayuu yidhi markaasu wuxuu yidhi in kidtum waxaad sigteen macnaha aanifan goor dhoweyd latafcaluuna ficla faaris fii cudamaa'ihim ficla faaris waruum fii cudamaa'ihim faaris iyo ruum dadkooda macnaha boqorradaas siday u sameeyaan ayaad sigteen idinka inaad hadda samaysaan maxaa yeele boqorradoo fadhiya ay eega taagtaagan yihiin ixtiraam dartiis saxaabadii saas uma aysan samaynaynin ayaga diin iyo macnaha qiyaamku waa rugni min arkaani salaa ayagu maadaama waxay malaynayeen rugnigan inuusan dhicaynin ilaa in la istaagamaan qofka caajiska un keliya uu ka dhacayo sidaas bay iyaga marka arkaayeen ayaga hadda kudayda isma aysan dhehayn laakiin nebiga waa ka reebay markiiba waa aragtaan inkastoo markii dambe nebiga istaag uu ku tukaday saxaabadan ay istaagnaayeen haddana mas'alada culummadu waa isku khilaafsan laakiin sida saxiixa ah xadiidku mansuukh ma ahan xadiidkan macnaha hadda aan sheegayno ma nasakhna waxaa ka mida ugu dambayn salaadan kusoo khatimaa macnaha in kabaha lagu tukado nebiga dadka ayuu amray oo waxa uu yidhi salluu fii nicaalikum kabihiina ku tukada khaalifu lyahuuda fa ina alyahuuda laa yusalluuna fii nicaalihim yahuudda kabahooda kuma tukadaan iyo qufafyadooda ee idinka ku tukada kabihiina saas buu nebiga sal lla ly slam u dhahay qofka marka nebiga sal ly slam marna kaba waa ku tukaday marna kaba la-aanba waa tukaday nebiga sal ly slam qofkii marka waa in haddii meel uu kaba kula tukan karo waa inuu kabaha ku tukadaa sunnadaas dabaqid ou dabaqayo darteed iyo mukhaalafada yahuudda oo shay mashruuca ah oo iyada iskeedba laysku amray marka dadkii waxaad moodaa in macnaha kabaha ku tukashadoodaba ay kala daran tahay macnaha shirkiga ay samaynayaan iyo qubuurahan ay macnaha dawaafayaan iyo qof kaba ku tukadaa kala daran dadka macnaha mujtamacaadka khaasatan macnaha dadkeenna weliba xadiidtan haddii macnaha loo sheegana macnaha laguma karo ilaa macnaha nijaas iyo waxbaa macnaha qofka uu ka shakinaa nijaastana nebigu wuxuu yidhi iska fiiriya kabihiinna intaynan ku tukanin haddii nijaas ay leedahayna dhulka ku ruga ayuu yidhi ciiddaa markaas dahirinayso waa xadiid nabowi ah sala allahu calayh wala alihi wasaxbi wasalam xadiidkan salluu macnaha fii nicaalikumna abu daawuud uu ku sugan yahay mar nebiga sal lla ly slam kaba uu ku tukanaya waa jirtay bukhaari ayuu ku sugan yahay oo marka kabaha nebigu uu iska tuuray oo iska dhigay markaasaa macnaha saxaabadiina kabahooda ay tuureen ay dhigeen markaasuu nebigu wuxuu yidhi maxaad kabihiinna u dhigteen markaas waxaan ku aragnay yaa rasuulla adoo kabahagii siibay markaasuu yidhi macnaha jibriil ama ayaa macnaha ii waxyooday ama waxyi ayaa waxaa la iigu sheegay kabahayga inay macnaha qadir iyo nijaas iyo wax noocaas ay lahayn saas baan marka kabihii isaga dhigay buu yidhi nebiga sal lla ly slam marka idinka laakiin ha dhigina saas baa macnuhu u ahaa macna nebiga sal lla ly slam marka waxaad fahmaysaa marka waanan arki doonaa masaajidda iyo siyaamka soonka iyo xajka iyo acyaadda iyo dharka iyo kulli inuu nebiga sal lla ly slam xadiid u ka sheegay waa sheegi doonaa khaasatan macnaha usbuuca dambe inta ka dhiman macnaha waxyaabahan cibaadaadka iyo mucaamalaadka ku saabsan ayaan dhammaystiraynaa si marka waqti fiican intuu noogu soo haro acyaadda gaalada marka aan uga hadalno maxaa yeele mowduuca ugu muhiimsan waa ciidaha gaalada
ciidaha gaaladana macnaha waa mamnuuc in macnaha lala mushaarakeeyo sida macnaha aan arki doonno aayadda u daliilkaana waa waladiina laa yashhaduuna zuura waidaa maruu bilaqwi maruu kiraaman mu'miniintu ama cibaaduraxmaan ma ahan kuwa xaadiro zuurka iyo waxyaabaha beenta ah culummada mujaahid iyo keyrkiis waxay ku fasireen zuurkan acyaadulkufaar in laga wado gaalada acyaadooda been waayo ciid aan ciidulfidri iyo ciiduladxaa iyo jimcaha oo ciid usbuuci aan ahayn ma jirto waxaa la mida iyadana ciidahan waddanka macnaha uu samaystay oo acyaadul wataniya macnaha la yidhaahdaa lamida waxaa kaloo lamida acyaadan macnaha dadku ay ku ay dhalashada ay samaynayaan iyo sanadahan macnaha sanadkan cusub waa ciid laftirkiisa wax kastoo soo noqnoqdo waa ciid dhalashada qofka macnaha birthday-ga oo samaysanayo iyadana waa ciid waxaas oo dhan waa qofka inuu u ogaado inay ciid tahay uusan gaala kaga dayanin wallahu tacaala aclam